inkastoo mahadhooyinka cawska cagaaran iyo cibaarooyinka habeen bacayn iyo maalin bacayn ay yihiin waddankii ingiriis ee faanayay tayadii iyo weliba xirfaddii xidigihii da'yartee dunida ka caansanaa oo 17 jir reer Brazil Wembley dhexdeeda isagu sharafta uu kaga qaaday wihiiwa yaa dheemanka Real Madrid ay leedahay Endrick ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay Brazil iyadoo xulka 5 jeer ku guuleystay koobka adduunka ay garoonka Wembley 1-0 uga badiyeen xulka England oo soo bandhigay qaab ciyaareed lagu lulooday yaa haddaba ingiriiskii faanayay ee lahaa sanadka wax kastaaba wixii soo socday adduunta iyo Yurub taayba halkaa naloo dhigo waa kuwa leembaxay markii Wembley Brazil ay ku booqatay 17 jirkan ayaa xagaagan u wareegaya Real Madrid kadib markii ay heshiis 62 milyan oo geni la gaadheen kooxda Palmeiras laakiin waxa uu Yurub tusay qayb yar oo kamid ah tayadiisa isagoo dhamaystir fiican sameeyay ciyaarta oo 9 daqiiqadood ay ka harsan tahay kadib markii goolhaya Pickford uu fursad halka hala ka badbaadiyay Vinicius Endrick ayaana bedel ku soo galay waqti yar ka hor goolkiisa waxaana uu dabaaldegay si waliya Pickford ayaa se ka beeniyay gool labaad waqtigii dhimashada ee ciyaarta Brazil ayay ahayd inay hoggaanka u qabato ciyaarta waqti hore iyadoo weliba Walker uu iska dhaawacay kubaddu xariiqa goosha ka badbaadiyay oo ka timid Vinicius halka sidoo kale Rodrigo uu fursad fiican qasaariyay kadib qalad uu sameeyay kabtan saaqidkii hore ee Ingiriiska ee Harry Maguire Lucas Paqueta ayaa England sidoo kale birta u garaacay iyadoo England ay ka liidatay dhanka difaaca oo ahaa wadiiqooyin wada bannaan xilka Gareth Southgate ayaa u baahan inay wax badan iska saxaan gaar ahaan dhanka difaaca markay wajahayaan xulalka Belgium maalinta Talaadada waxaanay u baahan yihiin guul si ay kalsoonidooda sare ugu kacdo ka hor intaan koobka qaramada Yurub ee xagaagani ka dhacaya Jarmalka aanay u safrin haddii sidan xaal sii ahaadana halkaas adeer waa koob inaan is hubin yaa ma yimaado hadduu yimaadona halkaas waxbaan ku toosinayaa iyo kulanka hore waan is eegaya iyo intan igaga eeg ma soconayso ingiriisow waxaa xidig wadataya mid kaliya la manaafacadsado iyo in yaroo isku toosan ma laga waayo masiiba ka higle walla reerkii faanayay waxbaa ku dhacay waa loo fooldhaqay foolxuma loogu fooldhaqay yaa faanayaashii ingiriis oo foolxuma loogu fooldhaqay 17 jir reer Brazil oo haragooda ku tukaday maryahana ka calaashaday ayuu xaalku maraya sidoo kale ingiriisku iyo weliba kooxdii Man City ahayd iyaguna may bahadin jug weyn ayaana Man City ka soo gaadhay koor kulanka muhiimka ah Arsenal oo ninkii Walker ahaa waa kan isaguna is dhaawacay nin Vinicius Junior ilaalinayana waan ku sii jiraya garoonka lagama sugayo waadeerow gacali uu sii kala daadanba yaa oo intaa hore ayaaba leeyahay Ilaahay mahadi kooxda Man City ayaa wadna garaaco mar kale ku sii bilaabmay kadib markii jug culus ka hor kulanka muhiimka ah Arsenal kadib markii uu dhaawacmay kulankan saaxiibtinimo ee wadamada England iyo Brazil kumade difaaca ayaa ahaa kabtanka xulka isagoo buuxinayay booskii uu ka dhaawacmay Harry Kane laakiin waxa uu garoonka ku jiray kaliya 19 daqiiqadood Walker ayaa u muuqday mid isaga isdhaawacay kadib markii kubad halis ahayd uu ka bixiyay xariiqda goolka markii Vinicius Junior uu kubadda daba mariyay goolhaya Pickford xidiga Man City ayaana kubadda si degan u soo qabtay ka hor inta uusan bixinin balse waxa uu kubadda madaxa uga dhuftay ninka la yiraahdo Harry Maguire difaacan midig ayaa kadib garoonka dhex fadhiistay isagoo dhaawac ka sheeganayay waxaana u baahday in dhakhaatiirtu ay u yimaadaan waxaana la arkayay isagoo ka sheeganaya lugta midig xanuun Walker ayaa kadib tagay agagaarka kursiga kaydka isagoo orod yar sameeyay si uu isku tijaabiyay inuu ciyaarta sii wadan karo laakiin wax yar kadib markii uu garoonka ka soo laabtay wuxuu dalbaday in la bedelo wuxuuna haystay muruqa bowdada ee lugta midig halkaana haddii la isqabto ninkii xaalkiisu ma yara waxay tani niyad jab weyn ku tahay Man City iyadoo Walker kaliya seegay 2 kulan oo Premier League xilli ciyaareedkan yaa albaaba balaqan Man City waxay ballansan yihiin Arsenal 31 bishan Maarso Walker ayaana shaki ku jira inuu dheeli karo labada xidig ee City ee Kevin De Bruyne iyo Haaland ayaa iyagana dhaawacyo looga reebay xulalkooda halka Bukayo Saka uu ka soo laabtay England markii uu dhaawac isna ka sheegtay halka iyada waa Arsenal iyo Man City habaaro ay Bluetooth iyo C-share iyo transfer isu saarayaan yaa inta ka horeysa kulankooda allow yaanu hebel ka soo noqon yaan hebel ka soo noqon yaa xaaladdu ma saaloona yaa marka wala kala eegi doonaa sida xaal noqon doono Real Madrid waxay go'aan ka gaaraysaa mustaqbalka xidiga Rodrigo
kaas oo iminka kooxaha Premier League ay diiradda u jeediyeen. Real Madrid ayaa waxay heshiis ka gaadhay weeraryahanka reer Brazil Rodrigo Goes kaasoo la sheegay inaanu boos ka heli doonin kooxda haddii ay yimaadaan Mbappe oo la filayo inuu xagaaga si xor ugu soo wareego Santiago Bernabeu iyo Endrick oo isaguna bisha July iman doona Los Blancos. Rodrigo ayaa la sheegay inay doonayaan kooxa ka dhisan horyaalka Premier League oo ay ugu horeeyaan Arsenal iyo Man United oo diyaar u ah inay bixiyaan 120 milyan oo euro oo laacibkan lagu qiimeeyay, laakiin Real Madrid ayaa qaadatay go'aan inuu sii joogo Rodrigo oo ay u aragto mustaqbal wanaagsan. sida warbaahinta Spain qorayso, Real Madrid ma doonayso inay iibiso Rodrigo waxaanu sii joogi doonaa Bernabeu xataa haddii ay yimaadaan Mbappe iyo Endrick ayaa lagu yiri wararka laga helayo kuwa xuuraanka iyaga ugu dhow. marka halkaa ayaa la isla maraya, laakiin ninka Rodrigo isagaaba la leeyahay ugu rabaa inuu baxo maadaama meeshan lagu soo rag kale imanayaan. Alonso ayaa isaguna go'aan ka gaadhay kooxda uu tababaro u noqonayo ma Bayern mise kooxda Liverpool. kooxda Liverpool ayaa u calaamadsatay xidigeedii hore ee khadka dhexe inuu yahay dooqa koowaad ee bedelka Klopp xagaaga. Alonso 42 jir ayaan weli xaqiijin inuu ka tagayo Leverkusen, kuwaasoo qarka u saaran inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horeeyay ee Bundesliga. waqti xaadirkan xidigan ku guuleystay championka iyo koobka adduunka wuxuu diiradda saarayaa soo afjaridda awoodda guulaha ee Bayern Munich. si kastaba ha ahaatee ilo Jarmal ayaa fahansan inuu door bidayo inuu ku biiro kooxda Bayern haddii uu ka tago kooxdani Leverkusen dhammaadka xilli ciyaareedkan. Sky Germany ayaa sheegaysa in Bayern ay kalsooni ku qabto inay ka dhaadhiciso xidigeedii hore inuu u wareego Allianz Arena, laakiin weli wax wada hadal lama aysan gelin. waxay sidoo kale xaqiijiyeen in Alonso ay u badan tahay inuu Bayern doorto bedelkii uu dooran lahaa Liverpool haddii uu ka tago Leverkusen. madaxweyne sharafeedka Bayern Uli Hoeneß ayaa si cad u sheegay in Bayern ay u aragto Alonso bedelka tababaraha baxaya ee Thomas Tuchel, sidoo kalena ay u qorsheeyeen dilaalin xaggaasi ku afdhaadheer sidii loo soo xerogelin lahaa. ma garateen marka xaaladuhu isgaargaadhayaan. waa ninkii halan u qowdhamayayna wuxuu sheegay hal xidig oo Arsenal oo boos ka heli kara waqti xaadirkan kooxda Man City. weeraryahanka Man City halan ayaa magacaabay ciyaaryahanka keliya ee Arsenal ee horumarin kara kooxdiisa Man City. waxa uu magacaabay kabtanka Arsenal Martin Odegaard oo isku wadan ka soo jeedaan. markii la weydiiyey haddii Odegaard uu horumarin karo kooxda City, halan ayaana ku qowdhamay markaa uu aaminsanahay sidaasi. waa ciyaaryahan aad u fiican, waa ciyaaryahan u dheela koox aan xifaaltamayno. waxa uu dhowaan saxeexay qandaraas cusub, sidaasi darteed ma ahan mowduuc. laakiin City waxaan ku haysanaa ciyaartooyda ugu fiican dunida. Odegaard ayaana ku riyaaqaya xilli ciyaareed kaloo fiican isagoo khadka dhexe u kantaroolaya Arsenal. waxaanu dhaliyay 6 gool xilli ciyaareedkan, bandhig qurux badan oo hogaaminta kooxda la yiraahdo haddii laba ku roon yahay Arsenal waa qayb lixaad leh. ninkii Lewis Eriksen wuxuu yiri ma Arsenal mise Liverpool mise Man City, kooxdu isleeyahay horyaalka ay ku guuleysanaysaa. maruu qowdhamayay waxaan jecelahay inuu Mikel Arteta ku guuleysto horyaalka kulana guuleysto Arsenal, haddii kale waxaan jeclaan lahaa inuu Pep Guardiola ku guuleysto ama kooxda Aston Villa iyo Unai Emery ayuu sii raaciyay. wuxuu sidaa u leeyahay waa qabyaaladii oo cadooshaadhkii iyo surwaalkiiba uu ka saaray, xataa umuu xidhin dirayse wuu ka saarayba muldhoq wayadii xaya. waa ama ninkan Pep isku kooxda ahayna soo wada halgan. haddii kale Arteta oo isagana wiilkaygiya ayaan la haddii kale miya Unai Emery. فهمت علي شيء كله كلام يا عبد هيبو دوادي لا سعوتها، لكن waxaan qabaa in Man City ay ku guuleysan doonto. waa kuwa ugu cadcad fikradeyda. Luis ahaan alla bahashu show la Yurub ay taalaaniyo iyadoon dhar loo xidhin oo noocanuna marka way la isgaargaaraa. Premier League ayaa daboolka ka qaaday jadwalka kulamada soo socda iyo murugada ku absatay kooxda Liverpool oo imtixaan adag sugayo. tababaro Klopp oo marar horeba saxaafadda u sheegay inaanu la dhacsanayn jadwalka iyo qaabka Premier League u go'aamiyay xilliga la ciyaarayo ayaa waxa uu mar kale kooxdiisa u diyaarin doonaa waqti duhurnimo oo ay saacadda UK tahay 12:15 PM iyadoo weliba maalin Sabtiya waana ciyaarta ay safarka ugu tagayaan kooxda Everton kadib markii ay ku guul daraysatay ciyaartii wareegga 8 FA Cup Man United.
Liverpool ayaa awoodda saari doonta horyaalka Premier League waxaase dhibaato ku noqon doona jadwalka cidhiidhiga. maalinta Axadda ee taariikhdu tahay Abriil 21 ayay Liverpool la ciyaari doontaa Fulham marka ay saacadu tahay 4:15 PM waqtiga UK iyadoo ciyaartana uu baahinayo telefishinka Sky. waxaana ugu xigi doona safar ay ugu tagayso Everton oo garoonka Goodison Park ku booqan doonto maalinta Arbacada ee Abriil 24 tahay marka ay saacadu tahay 8 PM waqtiga UK. iyadoo aan ciyaartoyda Liverpool nasanin ayaa waxay haddana Sabtida 27 Abriil ay safar ku tagi doonaan magaalada London oo ay marti ugu noqon doonaan West Ham waqti ay saacadu tahay 12:15 PM waqtiga UK. waxaana xilligaas ciyaartani go'aamiyay telefishinka TNT oo iska leh baahintiisa. kooxaha kale la tartamaya Liverpool ee Arsenal iyo Man City ma laha jadwal sidan u cidhiidhiya waxaana Gunners ay 3 ciyaarood ku dheeli doontaa 8 maalmood iyadoo Sabtida Abriil 20 la ballansan iyadoona maalinimada Sabtida Abriil 20 tahayna la ballansan kooxda Wolves. laakiin caqabada weyn Liverpool bay haysataa intay 7 ciyaarto 2 kulan ayay misana Sabtida maxaa ka galay duhurkii la soo dhaameelinaya marka horeba kale waa kii uga cabanayay jadwalkan Premier League iyo Liverpool sida xaaladu ku yihiin. marka iyadana waa imtixaan adag oo reer Liverpool u yaala. halganka adag ma aha mid ay maalmuhu joojiyaan. xubintu waa kariskii iyo kala haadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike. intaynu xubintan midda xigta ku kulmi doono saaxiibada aanu jecelahay inta ka horeysa Ramadaan Kariim sida ayaa amaana Allah. Smart Dental Clinic ku dhoola cadee $100 kaliya qiimo dhimis 40% ah bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed. Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed. adeegyada qiimo dhimista lagugu sameeyana waxaa ka mid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo kaliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin. haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin. sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh. hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo horjeedaa xarunta Formula 10. hamogaanin Smart Dental Clinic.